أيها الإخوة حيث ويديت لي مركا ور محي نور نولله دلين يروي حاجة كصعطة نلاش هذا حاجة كصعطة جامعات بان كبحي شهادة بان قاطي شقة في عم هلي وروى تجيسايا وحاصر دموع مالمه كم لبستم عدد السنين بالقويدين دونا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين باكو حكته مالين أما مالين بدكيت نلا الشيء هذا موحي كلنا نقول مالين أما مالين بدكيت مركات كلبة قرن ويداد واحد هذا فسأل العادين كوي ترين شريب هلا ويديو أدوغ إني مالين تهيا إني مالين بدكيت تات كلا ساري كاري لاضي بالعد لبدا كوكا للرجح هذا هلا ويديو بتاعن تاعي ونلا الشيء أما مالين بدكيت بعد دورتي مرك أيها الإخوة كلمة ديدو مركا waxay ku kooban tahay nolosha yoolkeedu yuu idinka qaldamay yay noqonin inaad tiraahdo shaqadii baan ku mashquulo salaadii baa ay dhaaftay yay noqonin inuu jamcu ku dhaafo yay noqonin waajibaadku inaad ka seexato yay noqonin haddii shaqa lagu siiyo inaad salaada subax soo kacdo dii lagu yidhaahdo shaqadaadu saddexda habeenimay bilaabmaysaa ولدن هيئات كوش قسام ملاك كوش قسام السفر بالقال يا ما شركة وش قسام دي لنا سدح ذهبين معه ولا سفر يا وصاع رضي وايو شغلي باكو حدا لكن شنتي يبرد كان لتكري وكيع كري ويبولي وهي هدف كارلو ماي هدف كشقادنا الله ما بيردرين أيوه أما كصلاة دي عبادات كي الجنة هي النار لقو قال يانا وحلقة دي وحفظوا أنا قوما إيماننا المحاضرة يدين أخريه إن المعلومات يدين كردية إن المعرفة يدين كردية ومتصعدة هنصعدة إن نصحنه هدف كائن الراض عينين أديك على جنب هي هدف كوحي لجو قاري لا علمية رجع نماء حوكسية ددالة أديك على جنب بين أبلة تماط لكن إن الهدف كوينك غلط من وشيء ولبا wixii loogu talagalay markuu qabto ayuu qiimada jooga saacka maaha ayuu halka ugu sarreeyay jooga hadii laakiin wixii loogu talagalay uu qaban kari waayo waxa la waa lagu khasaaray mesela ilaahay anbiyada markuu amaanayo quraankiisa muxuu ku amaanay nabi maxamed saacadka la amaanayay saacadii la sharfay ee cirka loo waday la dheelmiyay al-isra wal mi'raj uu galayay ilaahay muxuu leeyahay سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعبده أدوني محقيقي نبي عيسى محل يده لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إذن قفك وحو قف نمدي سعداتي markuu rabbigii aqbalo adoonnimadiisa markuu qirto markuu jidka adoonsiga uu maro markaas wixii loo abuuray gartay wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun markaas jidka haya amma haday noloshaadu lacib iyo lahwi noqoto hadaad garan weydo meel aad u socoto qiimo ma laha ahdaaftan yaryar soko oo dhami markaa haday wax barashatay haday guursitay haday xoogsitay وين نقدان أهداف أخدمينيسه هدف كوين يا أهمال أنت قيامين تبدباده يا حباشة مركات بلوضه سؤالها اخترت القويدين دونه إن تسسحة وجوابي كرته إن كير كيرين أو باقين أو قرقريرين إن تكمل نغطة كور ربي سوغه جواب تصح داكو سقمه آخر مركات سسوت أكتر لي ده قدم عبد مر دقاق سيلا ينك جوابته مو يعني سؤالها كوا سيدا صح دا وجوابه marka jidka siraad la maro ee uu noqdo meel madow oo dhuuban oo fiiqan oo cidi dul mari karin oo qof iyo amalkii uu marinayo hadafkaagu inuu xadidmo oo ilaahay wuxuu yiri wuxuu badbaadaya wa nunji alladheena taqaw ahlu taqwa inaad ku biirto idan ayuha alikhwa هذا مسألة قرطان وحبا إذا كما مقنا ده مسألة قرتت واحد كبير سكوى إلهي لي ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز العظيم
haddaad gaalka ka xoog badatana waa dalika fawzu alcadiim aduu kaa xoog batana waa dalika alfawzu alkabiir adigu se jidkii baad haysaa adigu waad guulaysanaysa adiga sharti maaha inaad guulaysato ilaahay qur-aanka muxuu ku tilmaamay waka'ayyin min nabiyin maxaa ku xiga qaatala macahu qirada kale maxay sheegaysaa qutil soo maaha ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka imisuu ku tilmaamo nebi la dilay fariiqan koox waa disheen baa ilaahay idhi kooxna imisaa nebi la dilo nebi la beeniyey waa guulaysteen nebigii la dilayna waa guulaystay kii la beeniyeyna waa guulaystay waayo isagu jidkii kama weecanin loogu talagalay adiga jid baa lagugu talagalay guul iyo guuldarro iyo waxani waa iska meel sokay adiga waxaa lagaa rabaa inay naftu kaa baxdaadoo rabbigaa caabudaya adigoo ariiqa saxa ah haya waxaa lagaaga baahan yahay as'ilada kugu soo beeganta nolosha inaad ka jawaabi karto oo aad uga jawaabi karto hadafkii lagu abuuray wixii aad ku gaadhayso ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu ina wada sugo inuu inagu sugo ariiqa xaqa ah inuu inaga badbaadiyo cadaabkiisa inuu inagu sugo jidka jannada loo